waxaa ku dhacay argagixisada al-shabaab argagax iyo kala firxad iyada oo lagu soo waramayo in haatan ay faarujiyeen deegaano dhowr ah kadib markii ay ogaadeen in ay ku soo wajahan yihiin ciidamada kumaandooska xoogga dalka danab iyo gorgor oo ay ka go'an tahay in ay cagta mariyaan baxsadka nabadiidka itaalka daran ee argagixisada al-shabaab gobolka Shabeellaha Hoose oo guud ahaan kooxdan laga sii nadiifinayo ayaa waxa ay markaasi ka dhigan tahay gabagabada nabadiidka iyada oo gobolkaasi inta ugu badan uu soo galay gacanta dawladda marka laga reebo deegaano yar oo ciidamadu ay ku wajahan yihiin idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa heshay xog ku saabsan in kooxda argagixisada al-shabaab ay isaga carreen deegaanka Mubarak oo hoostaga degmada Awdheegle oo dhawaan laga xoreeyay nabadiidka isla markaana ay ka war heleen in markaasi lagu soo wajahan yahay taasi ayaana ku qasabtay in ay sii faarujiyaan deegaankaasi maadaama hadda aysan lahayn awood ay isaga difaacaan ciidanka xoogga dalka saraakiil inoo waramay ayaa nala wadaagay in sirdoonka ciidanka uu helay xogta argagixisada ee ku aadan in ay u firxadeen dhulka baadiyaha hoodka ah si ay ugu dhuuntaan isla markaana ay u abaabulaan dhagar ay ku dhibaateynayaan shacabka aan waxba galabsan balse geesiyaasha oo feejigan ayaa ka hari doonin kooxdan itaalka daran meel kasta oo ay markaasi gabaad ka dhigtaan Maarso 19keedii 2020 argagixisada al-shabaab ayaa isaga carray degmooyinka Kuntuwaarey iyo Sablaale kadib markii ciidanka xoogga dalka ay halkaasi ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo markaasi qorsheysan kooxda al-shabaab ayaa goob muhiim ah u arka gobolka Shabeellaha Hoose oo hadda ay markaasi kaga dhuumanayaan goobo aad u yar waxaana howlgallo qorsheysan ay ciidanka markaasi ka wadaan gobolkan oo u dhigan yahay argagixisada jabkii ugu cuslaa oo soo wajaha maadaama xididasiib uu ku socdo